kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub khilaafka madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo meeshii ugu xumayd maraya xaaladda ayaana faraha ka baxday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana gacmaha ka taagtay isku haynta madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumaddiisa waxa uu xasan sheekh maxamuud codsi u diray beesha caalamka iyadoo dhaqaaqyo ay bilaabeen UNISOM iyo sidoo kaleeto Mareykanka ayna wadaan qabanqaabada shirweyne la iskugu keenayo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya afar mar oo hore ayuu fashilmay shirkii madasha wada tashiga qaran kaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu cilaamiyay in madaxda maamul goboleedyadu ay iskugu imaadaan madaxda maamul goboleedyada ayaa shirkaasi gabi ahaanba ka soo qayb galin intooda badan waxa ayna u sababeeyeen hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay si weyn u saluuganaayeen madaxweynuhuna uu ka garaabi waayay marar badanna ay sheegeen in ay kala xaajoodeen in wax ka bedel lagu sameeyo haddaba shirkan ay beesha caalamku qabanqaabinayso ma ka soo qayb gali doonaan madaxda maamul goboleedyada oo si weyn ay isku hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa maxaase looga arinsanayaa muxuuse yahay qodobada ay isku hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya qodobkeena koobaad ayaan ku dul istaagi doonaa waxaa dhinaca kale teeyadana eegi doonaa fashilka xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ceebta maanta u taalo ee filla Soomaaliya maanta ku dhacday iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa dhinaca kale 2 sano iyo bar 3 sano ayay xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sii socotay maxaa u hirgalay xukuumadda maxaa u qabsoomay iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa dhinaca kale dowladda federaalka ayaa si weyn u cambaaraysay hubkii Ethiopia ay siisay maamul goboleedka Puntland waxa ayna ku tilmaantay inay tahay horin olaadeed jabin sharci oo Ethiopia ay jabisay iyadana go'aankaasi ka soo baxay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaan iyadana dul istaagi doonaa waxaan guud ahaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa isqaqabsiga siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda hubkan tirada badan ee ku sii qulqulahaya dalka Soomaaliya la tacaamulka Ethiopia ay la tacaamulayso madaxda maamul goboleedyada iyo waxyaabaha la isku hayo waxyaabaha sababta u ah in dal kaleeto uu hub soo geliyo dalkaada iyo khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya waxa sabab u ah iyadana waa tilmaamaynaa soo dhawaado muuqaalka la isaara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownee horta madaxweyne xasan sheekh maxamuud adduunkay madaxweyne intaan arkayo madaxweyne nooca u fashilma ma arkin madaxweyne horta waa fashilmay waxaan ogsoonayn khilaaf adag inuu kala dhex taagnaa oo ka dhex qaraxay madaxda maamul goboleedyada iyo isaga xukuumaddiisaba aan dhahneen ama aan dhahnaba waxa weeye xisbiga daamujadiin khilaafka muddo badan baa waxaan lahayn war khilaafka ha la xalliyo war meel fog buu gaari doonaa war marxalad adag buu lugta la geli doonaa war madaxweyne xasanow kada umbaan lahayn weligeenba 2 sano ugu dambeysayba maxaa laga faa'iiday marka waxaa maanta laga faa'iiday xasan sheekh maxamuud hadalkiisi ahaa kula hadlin ma kaa qaybgelin ma waxba kaa weydiin ma waxaa laga faa'iiday in madaxdii maamul goboleedyadu ay dhahaan anaga hadafkaada siyaasadeed ma wadano waxba kaa dhagaysan mayno dowladdan rabnaan la tacaamulaynaa bulshadaas anagu ana soo dooratay mas-uuliyaddeeda annaga ayna saaran tahay ayaan xaqoodii haddaad adigu u diiday aan adduunka ka raadinaynaa halkaas baan aadaynaa 4 shir buu cilaamiyey xasan sheekh maxamuud oo yidhi isku imaada adeer intaad hadafkaas siyaasadeed ee noocaasa aad wadato kuma imaanayna haystaalinin baa lagu yidhi waxay ugu dambayn ay noqotay shirkii ugu dambeeyo taariikh 20 maanta la rabay inuu qabsoomi waay inuu beesha caalamka isku dhiibo oo uu yiraahdo soo gaara sida macquul maaha madaxda maamul goboleedyada iyo u yeedha teendadii buu ku laabtay duqi teendadii farmaajo uu qarankeena ka dhex saaray oo uu yiri anaga teenda nologa talin mahayo halkii buu xasan sheekh maxamuud horta ku laabtay halkaa buu ku celiyay Mareykan iyo wuxuu u dhibay UNISOM oo yiri hooya leysku waa kan madaxda maamul goboleedyada iskugu kaan yeedha idinku shir noo qabta maanta waxay taagantaa xilligii carta shir noo qabta xilligii carta iyo Cabdullaahi Yuusuf wixii ka horeeyay ayay horta maanta qarankeena Soomaaliyeed maraya naceeb ka weyn baa jirta qaran inta la soo dhisay ilaa ka soo bilow
labadii kun iyo labiyo tobankii markii loo dhiibay sheekh shariif ilaahay dembigiisa ha dhaafee ninkan nin xun maahay nin fiican buu ahaaye sheekh shariif waaguu xilka qabtay wixii ka dambeeyey dalkeenu maalin walba tallaabaa la qaadayay kii tallaabo aan qaadina halkiisi baa loogu imaanayay dowladdaad ogeydeen farmaajo intuu labalaabay weliba dadaal badan buu sameeyeyoo qabkii soomaaliyeed soo celiyu yidhi annaga waddan noo yeedhi kara ma jiro waddan annaga nala talin kara ma jiro waddan annaga qarannimadana nagala hadli kara ma jiro waddan annaga wax noo sheegi kara ma jiro waddan haddaan iskaashanayno oo siyaasad iyo dhaqaalaba iska kaashanayna adduunka diyaar baan u nahay laakiin wix intaa dhaafsiisan annaga bahdil baan u aragnaa marna ma yeelayna buu yidhi dalkii oo marka sa iskugu toosan oo ninkii khilaaf wada iyo ninkii aan khilaaf mucaarada iyo ninkii mucaaradan ahaynba la kala ogsoon yahay ayuu xasan sheekh maxamuud xilka qabtay armuu la soo istaagay isagana soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa soomaaliya la heshiisa dunida la heshiisa mee hadalkii awal xaggee aaday waxay maanta sabab maraysaa dalkeenu marayaa in la yidhaahdo efisioni nageeya oo noo qabta shir noo qabta madaxda maamul goboleedyada igu yeedha shir noo qabta beeshii caalamka unisom iyo maraykanku waxay qabanqaabinayaan shirweyne madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda loo qabanayo labadaa basaa loo qabanaya waa xasan sheekh maxamuud xamse golihiisa wasiirada ciddii soo raacaysa iyo madaxda maamul goboleedyada loo qabanaya waa markii laisku imaan waayo waxaa la yidhi annaga waxaad wadato marna ma yeelayno markii lagu gacan sayray meeluu wax u dhaqaajiyay markuu yidhi igu yeedha idinku beesha caalamkahay idinku noogu yeedho oo nala jooga ma ilaahay baa kugu dhaariye waddan shisheeyo oo kula joogo waxaad ka doodeen iyo waxaad ka wada hadasheen oo la dhegaystay miyaa qaran lagu hogaaminaya wax waddan kale kuu yeedhiyey oo kuu sheegay miyaa waddan lagu hogaamin karaa maanta dalkeennii horta halkaabaa la geliyey in afisoni ay iyo maraykan ay dhahaan qorqoorow ma maqlaysa lafta gareenow ma maqlaysa madoobow ma maqlaysa imaada magaalada muqdisho halkaabaa shir laynagu qabanaya dalkeennii horta halkaasuu xasan sheekh maxamuud u fadhiisiiyey maxaa sabab u ah marka intaa waa isla fahanay maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah siyaasad xumo waxaa sabab u ah wada tashi la-aan waxaa sabab u ah ka qaybgelin la-aan waxaa sabab u ah xushmad la-aan waxaa sabab u ah xaqii maamul goboleedyadu ay lahaayeen oo la duudsiyo banaanka lagu cuno meelaha lagu cuno ayaa sabab u ah xasan wuxuu yidhi kula tashan ma kaa qaybgelin ma waxba kaa weydiin ma adiga kuma taalo anigaa madaxweyneha masaajidkiisa isku khudbay aniga madaxweyne saan rabaan yeelaya saan rabaan yeelaya haddii waayahay saad rabta yeeshee waxaa la yidhi dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka abaa la yidhi waa la isku ladhay federaal baan inagu nahay federaal micnaheedu waxaa weeye inay dowlad dhexe jirto dowlad statena ay jirto oo dowladda state awood ay leedahay awood iyadana ay leedahay populationka iyadu ay xukunto dastuur gaar oo ay leedahay laakiin federaalkii ay ku xidhan tahay taas bay ahayd haddaad tirahdo dowladdii stateka loo tashanayo oo waxbaadi kaa weydiin mahay aad tiri seed wax ku wadi ma wadi kartid waa marka siyaasad xumada xasan sheekh maxamuud baa dalka halkaa dhigtay oo sabab u noqotay efisioni in shir lagu qaato maanta dib la iskugu imaado efisioni ay shirka iyagu qabanqaabiyaan oo ay yeedhis maanta lagu shaqeeyey yeedhis in lagu shaqeeyo 2024 xasan sheekh maxamuud baa horta siyaasadiisa sabab u ah taa waa in la ogsoonaada marka waa siyaasad xumo dalkeena fiiri dagaal beeleed baa meel walba ka socda meel walbaa la isku haystaa hub baa soo qulqulaya kolba meel waxa way soo gelaya cabud waaq buu galay hebel buu galay galmudug buu galay hebel buu galay waxbaa la soo dejiyey Ethiopia wax keentay qaaq baa la leeyahay maxay tahay maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah kasbasho la-aan waxaa sabab u ah madaxweynihii oo aan la shaqeynayay madaxda maamul goboleedyada waxaa sabab u ah qabaa'iladii iyo waxa weeye shacabkii Soomaaliyeed oo xuquuqdoodii banaanka lagu dhisanayo dowladda federaalku aysan saa u soo eegayn ayaa sabab u ah dhammaan marka waxaa soo dhan ee dhacaya dalkeena ka dhacaya maanta ceebta ay ugu dhacaysa waa siyaasad xumada madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas baa marka sabab u ah dhinaca kale maanta waxay cambaareeyeen oo ka hadleen hubkii maamulka Puntland Ethiopia hubkii maamulka Puntland ay siisay ayay maatoona la hadalayaa oo wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia yeeshay war adiga fiiri dadkaada haddaad wax siisan weydo oo dadkaada adiga aad kalsooni ka dalban weydo oo dadkaada qofka wax tabanaya la hadli weydo oo dadkaada adigu la fadhiisan weydo oo gurigaada adigu hagaajisan weydo waddan kale cadow muxuu kuu qabanaya waxba kuuma qabanaya midda kale
dadkaadu sokaama cararayaan oo meeshii dheef jirto aadi mahayaan maamulka puntland maalintuu xasan sheekh maxamuud uu xilka qabtay iyo maanta banaankaas baa la kala taagan yahay saciid cabdulaahi deni mar buu gogol dhigay oo garowa dhigay xasan baa diiday erguu soo diray oo farmaajiya wuxuu soo diray ninkale sheekh shariif waa diiday inuu la kulmo mar kaluu haddana soo diray waa diiday asagaa cilaamiyo ergeygii qaramada midoobey gabadhii la ceydhiyey ayuu waxa weye usoo dhiibo yidhi la soo hadalo waan la fadhiisano diyaar baan inaan la garnaqsado waa diiday ninka la yidhaahdo hadda joogay ergeyga cusub ee qaramada midoobey soo magacawday ayuu haddana usoo diray xasan baa diiday intaaba xasan baa diidan oo kulana yaa khaldan marka maxaa diidaya marka puntland inay danaheeda aado puntland danaheeday aaday hubkaana xaq bay u leedahay in etoobiya mehe yuhuud hadday rabta ay u doonato xaq bay u leedahay haddii qofku wadahadal uusan og in lala hadlo uusan ogolayn oo waxa weeye wixii la wada lahaa shuruucdii la wada lahaa oo dhan lagu tunto oo waxa weeye dhaqaalihii iyo wixii maamul goboleedyadu ay lahaayeen banaan lagu cuno la musuq maasuqo la yidhaahdo waxba igama weydiin kartid laga cararo dadkaada haddaad ka cararto dee ceebtan oo kalea kuu dambaynaysa iyaguna dee danahooday qabsanayaan marka maamul goboleedyadu danahooday qabsadeen dowladda federaalkana ceebtaa iskale xasan sheekh maxamuud baa iskale isagaa sabab u ah marka waa guul weyn horta reer puntland hubkaasi waan soo dhaweyneynaa cadowgaa lagula dagaalamay soomaaliya lagulama dagaalamaye argagaxisada lagula dagaalamaya marka waan soo dhaweyneynaa horta taasi midaasi waa horta waa dowladda federaalka iyo cambaaraynteeda way cambaaraysay oo etoobiya way nagu soo xadgudubtay etoobiya waxay jebisay qawaaniinkii caalamigahaa etoobiya waxay duqii etoobiyaba lagu mashquuliyeyba shaqadiisii dhannayd iyo wixii loo idmaday etoobiya ay noqotay taasi ku dheeraan mayno marka waxa weeye waa cambaarayntii ay cambaareeyeen ay ka hadleen midda kaleeto waxaad isweydiinaysaa etoobiya maxay ka faa'iideysaa hubkan tirada badan ee ay soo gelinayso gudaha soomaaliya ee maamul goboleedyada ay siinayso iyo weliba shacabka baan dhahnay maxay ka faa'iideysaa etoobiya waxay ka faa'iideysaa inay maamul goboleedyada ay xidhiirkooda hagaajisato inay maamul goboleedyada xabiib ka dhigato inay maamul goboleedyada tiir ka dhigato inay maamul goboleedyada ay ka hor keento inaysan saldhigyo siinin ciidamadan masar ee soo socdo marka calaqaad saaxiibtinimo waxbay hagaajisanaysaa etoobiya weel bay xaadxaadhanaysaa etoobiya waxay xaadxaadhanaysaa weel ay caano ku dhanto oo aan qashin ka soo raacaynin dhuunta u istaaga ayay etoobiya waxa weye raadsanaysaa marka hubka maamul goboleedyada ay siinayso ciidamada ay u tababarayso hadday noqdaan puntland hadday noqdaan somalilan hadday noqdaan waxa weeye koonfur galbeed hadday noqdaan jubbaland hadday noqdaan s c oo ay jaanis ka helaan dan baa iyada ugu jirto danta ugu jirta waxa weeye inaysan ogolaanin maamul goboleedyadaasi in etoobiya waxaan ka wadaa masar aan saldhigyo dhulkaasi laga siinin xuduudda etoobiya soo xiga inaan laga siinin oo ay ka hor keento waxay kaloo ka faa'iideysaa in ay dowlad awood leh oo isku xidhan oo soomaaliyeed aan la helin waxay kaloo ka faa'iideysaa in shacabka soomaaliyeed ay ku kala qaybiso intaas bay ka faa'iideysaa waa inaad adigu marka faatid adu haddaad dadkaadi ka cararayso oo adiga waxa weye shacabkaadi kala waxaweye kala hub iskugu dhiibtay oo waxa madaxdii maamul goboleed ka cararayso oo waxa weye garnaqsi ka cararayso oo wadahadal ka cararayso oo bulshadaadi midnimadeeda adu halaynayso dee cadow waa kaa faa'iideysanaya etoobiya marka way kaa faa'iideysanaysaa marka waxaan leenahay war bal intaad dib iskugu noqotaan waxaan ceeb ka badane dalkii haadaan baad ka tuurteene afadaali haddii xataa inan waxba kala qabanay karin iska carara waa la cararayo qofku cararka xataa mararka qaar may fiican tahay iska cararo waddanka iskaga taga waxaad qaadateen baa inagu filan inta allaha inagu anficee iskaga taga ama doorasho deg dega qabta oo xil wareejin ah oo qof kale oo samata bixin kara dalka ku wareejiya haddiina intaa qabanaynin isku keena ummadda soomaaliyeed oo dhan oo raaligelin bixiya oo waxaad samayseen iyo dhibaatada dalkaad ka haysateen waxaa weeye raaligelin intaad ka bixisaan bulshada soomaaliyeed cid walba wax tabanaysa hadal dhaha oo ka qanciya si dalka loo midayo dalkeeni hadda meeshuu maraya waad ujeedaan waad aragtaan idinkana ceebowde dalkiina faruhu ka baxay